السلام عليكم وسعيد عبد الرحمن الذي بودكاست kulanti wacan oo wanaagsan maanta waxaan idin iftiimin doonaa qodob muhiima oo guul weyn u ah jamhuuriyadda Soomaaliland kadib guusha madaxweynaha 74aad ee dalka Mareykanka Donald Trump. qorshahaas ama plankaas oo loo yaqaan Project 2025 oo ay soo bandhigtay hay'adda conservative-ka ah ee loo yaqaan The Heritage Foundation. haddaan si kooban idinku bayaamiyo waxa uu ka kooban yahay mashruuca loo yaqaano Project 2025. Project 2025 wuxuu ka kooban yahay 4 bilar sidiisaba oo udub dhexaad u ah sidii mabaadi'da xisbiga jamhuuriga ah loo meel marin lahaa. ajendaha koowaad uu ka kooban yahay ama bilarka koowaad uu ka kooban yahay Project 2025 waa ajendaha siyaasadda xisbiga jamhuuriga. 2 tayada shaqaalaha aqalka cad iyo hay'adaha kale dowladda. 3 tababarka shaqaalaha hay'adaha dalka iyo hay'adaha kale la shaqeeya dowladda Mareykanka. 4 buugga istiraatiijiyadda xisbiga 180 cisho ee aqalka cad ugu horeysa madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo iyadana loo yaqaano The Playbook of 180 Days. haddaba waxaynu si gaar ah u dul istaagi doonaa qodobka 4 oo ah manifestada ama istiraatiijiyadda xisbiga jamhuuriga ee 180 cisho ee ugu horeysa shaqada aqalka cad, taas oo aan si gaara u eegi doono qorshaha wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ee ku wajahan geeska Afrika. Project 2025 wuxuu tilmaamayaa muhiimadda Mareykanku uu u doonayo inuu diiradda u saaro sidii Afrika looga yareyn lahaa saameynta Shiinaha. Somaliland waxay ka mid tahay meelaha muhiimka ah ee Mareykanku uu u doonayo inuu xidhiidh gaar ah oo xooggan uu la sameeyo si uu u yareeyo saameynta Shiinaha uguna tartamo dhinaca maalgashiga geeska Afrika. Project 2025 wuxuu soo jeedinayaa in aqoonsiga Somaliland uu ka mid yahay istiraatiijiyad cusub oo Mareykanku ugu talagalay inuu ku yareeyo saameynta Shiinaha ee Afrika, sidoo kale uu kaga hortago khatarta burcadbadeeda iyo argagixisada, sidoo kale uu ka ilaashado danihiisa geeska Afrika. saldhigga military iyo dekedda magaalada Berbera waxay ku dhow yihiin marinka muhiimka ah ee Bab el-Mandeb, halkaas oo ganacsiga caalamku isaga gudbo badanaa. waxaa Mareykanka u muuqata sanadadii u dambeeyay in Shiinuhu awood xoog leh ku yeeshay qaaradda Afrika, khaasatan geeska Afrika, isagoo saldhig ciidan ku leh dalka Djibouti. Project 2025 wuxuu sidoo kale xoogga saarayaa arrimaha qiyamka sida dimuqraadiyadda iyo xuquuqda bini'aadamka oo Afrika, taasi Somaliland qorshooyinka 2024 ka dhici doona ay u noqon doonaan mid si dhow dowladda Mareykanku ay isha ugu hayso. aqoonsiga Somaliland ee xukuumadda Donald Trump waxay caddeyn u noqonaysaa sida Mareykanka ay uga go'an tahay inuu taageero buuxda u fidiyo dalalka ku guuleystay inay dhistaan dowladnimo iyo dimuqraadiyad sal ballaaran oo ku saleysan nidaam xisbiyo iyo tartan ka dhexeeya xisbiya asxaaba. sidoo kale aqoonsiga Somaliland wuxuu Mareykanka siin doonaa meel muhiim u ah oo uu kaga qayb qaato arrimaha xasaasiga ah ee ka jira guud ahaanba mandaqada gobolka Badda Cas. dowladda Mareykanku waxay si gaar ah u xustay in saldhiggeeda military uu noqon doono magaalada Berbera, isagoo sidoo kale ka faa'iideysan doona dekedda Berbera ee ku taal jidka maraakiibta ganacsiga. Project 2025 waxaa ku xusan in Mareykanku qaadan doono go'aan muhiim ah oo istiraatiijiyadeed, kaas oo ah in la aqoonsan doono
Somalilan sidii ay u noqon lahayd dal madax bannaan. Tallaabadani waxay xoojin doontaa saameynta Mareykanka ee Geeska Afrika, waxayna ka yareyn doontaa saameynta Shiinaha ee Geeska Afrika, iyadoo Somalilan ay ka heli doonto taageero buuxda oo diblomaasiyadeed iyo mid dhaqaalaba dowladda dalka Mareykanka. Mahadsanidin daawadayaal, sida wanaagsan ee aad channelka ugu xidhan tihiin. Intaa waxaan kusoo koobanaa barnaamijkeenii koobnaa ee ku saabsanaa Mareykanka iyo aqoonsiga la rajeynayo in xukuumadda Donald Trump 180 cisho ugu horeysa ay siiso Jamhuuriyadda Somalilan. Wixii fikirkaaga ah eed qabto commentiga nagula wadaag, sidoo kale fadlan la wadaag saaxiibadaada ku xidhan channelka. aad baad mahadsantiin. Waa Saciid Cabdiraxmaan oo idin leh kulanti dambe.